رئيسل وزراء حكومة فدرالka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr oo safar shaqo uga bilowday Galmudug ayaa si heersar loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug. madaxa xukuumadda Galmudug mas'uuliin ka tirsan golayaasha dawlad goboleedka Galmudug wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiiro xildhibaano ka tirsan Galmudug iyo federaalka iyo kumanaan shacab ah ayaa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha garoonka diyaaradaha ee ugaasnuur ee magaalada Dhuusamareeb. shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb ayaa si weyn u soo dhaweeyay safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku yimid magaalada Dhuusamareeb iyadoo wajooda laga dheehan karay sida ugu faraxsan yihiin maatinkiisa waa kuwan qaar kamid ah shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb oo aragtida ka dhibanaya. maanta waxaan meeshaan iskugu nimid annagoo xaafadaha Dhuusamareeb iyo dadka deegaanka dhamaantiis caasimadda Galmudug inaan soo dhaweyno ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si aad iyo aad aan ugu xiiso qabnay in badan oo mataqaanaa ay sheeg soo dhaweyntiisa iyo abaabulkiisa ayaantaan oo dhan aan wadnay. maanta waxaan soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweynaan kamid noqdo dhalinyaro soo dhaweynaysa marka waxaan leenahay ra'iisul wasaare soo dhawo. magacayga waxa la yiraahdaa ugaas Maxamed Maxamuud Tarbi oo ku magac dheer ugaas Caruuf waxaan u arkaa soo dhaw imaashaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan u arkaa farxad iyo barwaaqo iyo rayn inay ka dambeynayso iyo guul iyo barwaaqo ayaan u arkaa. runtii aad baan ugu faraxsanahay ifafaalaha dawladnimada in maanta ra'iisul wasaaruhu halkan ka soo degay aad baan ugu faraxsanahay shucuurta dadku aad bay u fiican yihiin runtii maanta markaan magaalada dhex marayay dadku aad bay u sheekaysanay way faraxsan yihiin dadka dhan qof calan sita qof sawir sita baabuur socda dadku way faraxsan yihiin magaalada dhan way camiran tahay waxa ka muuqda haykal dawladnimada ka muuqda. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa safarkiisa Dhuusamareeb waxa ku heliyay wasiirada amniga boosada iyo isgaarsiinta kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo mas'uuliyiin kale. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa inta uu joogo magaalada Dhuusamareeb waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Dhuusamareeb.